asbaabta keenta dadku inay fawaaxishta iyo dambiyada foosha xun ku dhacaan mid ka mid ah rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadii nin uu haweenay ajnabi la keliyeysto oo meel kula cidlaysto xumaantu ka dhici karto shaytaan baa saddexeeyo nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii shaytaan idin saddexeeyo muxuu sameeynaya laba ruux ajnabi kala ah shahwadu kicinaya waa isu qurxinaya waa isku diraya inay meeshaas xumaantii ka dhacdo ama muqaddimaadkii xumaantu ka dhacdo ka shaqeynaya shariicadeena xikmadeeda kamid tahay inay dambiyada aysan reebin keligooda laakiin iridaha loo soo maro oo dhan inay si xidho oo tidhaahdo haweeney ajnabiga la keliyeysan dumarka hadaawanin ajnabiga jirkooda hadaawanin haweenkii yiraahdo ragga ajaanibta jirkooda indhaha laaba hadaawanina haweeney iyadoo keligeeda maxram laan ayna safrin rag iyo dumarku ajaanibtiina isdhexgelin waxa soo dhan waxa laga shaqeynayaa xumaanta dhicitaankeeda laga sii taxadarayaa iridaha la sii xidhiyo daraa'icda iyo jidadka loo mari karo ayaa kulligood la sii xidhaya shaytaan baa saddexeeya waa isku diraya xumaantuna inta badan sidaas ay ku dhacdaa laba aan khalad ku kulmin xumaani kama dhexdhacdo xumaani waxay ka dhexdhacdaa kulan khaldan bay ku timaadaa taasuu nabigeenu ka digaya salawaatu rabbi wa salaamu calayhi